halkani waa qubanaha TV ku soo dhawaada barnaamijwareedkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah magaalada Garacad ee gobolka Mudug waxa maanta xariga laga jaray dekad ay yeelanayso maamulka Puntland waliba dekada labaad uu maamulkaasi yeelanayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaaladaasi gaaray ayaa xariga ka jaray dekada Garacad ee gobolka Mudug balse arinta la yaab kale ee ka dhacday magaaladaasi ayaa waxa ay tahay dadkii soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in ay diideen in ay dusha saartaan ama qoorta ay surtaan sawiro lagu xardhay madaxweynaha sawiradiisii iyo sidoo kale boorar uu ku sawiran yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taa bedelkeeda waxa ay soo qaateen boorar uu sawirkeedu ka muuqdo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ku dhawaaqayay in uu yahay ninka samata bixiye Soomaaliya sidoo kalena uu yahay ninkii dekadan in halkan soo gaarto qayb weyn ku lahaa walibana ay sheegeen muddadii uu xilka hayay in uu qayb weyn ka qaatay dhismaha dekadani dadkani badankood waxay diideen inay soo dhaweeyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arinta la yaab kale ee ka dhacday magaalada Garacad ee gobolka Mudug iyo xogta ka dambaysa iyo shaki weyn oo soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa maamulka Puntland ayaa idin soo gudbin doona Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barane waxa uu soo saaray amar la yaab leh oo duligay warbaahinta Soomaalida waliba kuwa ka shaqeeya magaalada Muqdisho oo uu sheegay in dhamaantood ay la shaqeeyaan al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre sidoo kalena waxa uu soo saaray awaamir waaweyn oo ku saabsan baahinta wararka la xiriira al-shabaab xogii ugu dambeeyay siyaasiyiin ka aragti dhiibtay ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal xogaha kalena waxa kamid ah ciidamada dawladda waxay la wareegeen deegaan muhiim u ah al-shabaab walibana ahaa deegaankii ay ku soo bandhigeen rag ay sheegeen in iyagu ay taabacsan yihiin walibana ay ku sheegeen inay yihiin qabaa'ilka dega halkaasi saraakiisha xildhibaanada hogaaminaysay dagaalkani waxay sheegeen in si nabada ay kula wareegeen deegaanka masaajid Cali Guduud oo kamid ah deegaanadii ugu muhiimsanaa al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka joogeen xogahaasi iyo kuwa kale ayaan qaybtan ku baahin doonaa saaxiibayaal aynu ku bilaabno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qayb ka ah xarig jarka dekada Garacad ee gobolka Mudug dekadani waxay noqonaysaa dekada labaad uu yeesho maamulka Puntland sidoo kalena arinta la yaab kale ee warbaahinta laga qariyay waxay tahay dadkii soo dhaweynayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay diidaan in ay qaataan boorar uu ku xardhan yahay sawirka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale dadka qaarkii waxa la arkayay in ay wateen boorar uu sawirkeeda ka muuqdo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena waxay ku hadaaqayeen in uu ahaa samata bixiye iyo sidoo kale nin badbaadiyay Soomaaliya waxay sidoo kale sheegayeen dadkani diiday inay ka soo qayb galaan soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaalin weyn ka qaatay dhisida iyo sidoo kale in uu kaalin weyn ka siiyay ganacsatada u diyaar garoobay ama isu xilqaaminay dhisaan dekada Garacad waxay sheegeen in xilligii uu joogay Soomaaliya ama talada dalka uu hayay in uu qayb lixaad la ka qaaday in la dhiso dekada Garacad ee gobolka Mudug sidoo kale waxa shaki weyn soo kala dhaxgalay madaxda ugu sareysa ee Puntland iyagoo ku kala aragti duwanaaday qaabkii loo soo dhaweyn lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo arintani la yaab iyo fajaca ka qaaday waxa uu sidoo kale dadka iyo bulshada ku nool dekada ama deegaanka Garacad waxa uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani u sheegay in arinta ay sameeyeen ay tahay arin aad u qalad ah walibana uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu taaka kamida dekadani uusan gelinin sidoo kale waxay sheegeen in dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kaalin weyn ka qaadatay dhisida iyo waliba sidoo kale in ay ka caawisay in ay ku soo xiraan hay'ado waaweyn oo qayb ka noqda dhisida dekada Garacad oo maanta xarig jirkeeda wajiga koowaad uu qayb ka noqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wajigiisa laga dheehan karay carab weyn ayaa waxa uu la hadlay bulshada iyo dadkii ka soo qayb galay oo u badnaa madaxda oo ka kala socday Itoobiya Soomaaliya iyo Kenya sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu sidoo kale qarinayay carada ka muuqatay iyo sidoo kale sidii loogu bahdilay soo dhaweyntii maanta loogu sameeyay deegaanka Garacad ee gobolka Mudug Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barane waxa uu soo saaray amar la yaab leh oo la xiriira baahinta wararka al-shabaab sidoo kalena Ra'iisul Wasaaruhu maanta khudbad uu ka jeedinayo kulan loogu duceynayay Allah u naxariistay nabadoon cilmi hagar guure iyo Hibaaq Cali Dasar
oo labadooduba ka mid ahaa dagaalada lagula jira al-shabaab sidoo kalena ku kala geeriyooday dagaalo ka kala dhacay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo ka wada tirsan maamulka Hirshabeelle. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan dad magaalada Muqdisho ka fulinaya warar been abuura oo la xiriira al-shabaab oo uu sheegay inay qayb ka yihiin waxa carqaladeynaya nidaamka uu sheegay iyo sidoo kale howlgallada lagula jira al-shabaab. wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in cid alaala cidii baysa wararka la xiriira al-shabaab waliba kuwa buunbuuninta uu sheegay in nidaamka iyo sidoo kale lagu qaadi doono sidoo kalena dawladdiisu ay ku qaban doonto gacan bira waa sidoo hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay inay hadda hayaan xogta wariyaal iyo sidoo kale mas'uuliyiin warbaahineed oo uu sheegay in ay qayb ka noqdeen sidoo kalena buunbuuninta al-shabaab. waxa uu sidoo kale intaasi raaciyay in xilligaani ay ka qayb qaadanayaan wararka la xiriira al-shabaab ee lagu buunbuuninayo. dawladda Soomaaliya waxay dagaal dhinacyo badan kula jirtaa al-shabaab iyagoo sidoo kalena maalmihii la soo dhaafay soo saaray amaro la xiriira wararka lagu baahinayo baraha bulshada ee sidoo kalena al-shabaab la xiriira. sidoo kale dawladdu waxa ay dhawaanaha bashaacisay in ay qabteen hay-ado iyo sidoo kale ganacsiyo waaweyn oo lacag laga siin jiray al-shabaab. markana haddii aynu eegno ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka waxa ay la wareegeen deegaan muhiim u ah al-shabaab oo lagu magacaabo Masjid Cali Gaduud. deegaankani waxa uu ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada saraakiisha hogaaminaysa waxay sheegeen in ay si nabada kula wareegeen oo wax iska caabina ay kala kulmin dagaalamayaasha al-shabaab. al-shabaab deegaankani hore waxay uga soo bandhigtay odayaal ay sheegeen in ay u dagaalami doonaan dhawaan sidoo kalena ay yihiin macaawisley xiriir dhow la leh al-shabaab. saraakiisha ciidanka dawladda oo hogaaminaysa howlgalkan waxay sheegeen in howlgallada ay sii kordhin doonaan sidoo kalena ay u ruqaasan doonaan degmada Aadayabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah degmada ay haysteen muddo sanado badana oo al-shabaab ay maamulayeen. ciidanka dawladda waxay sidoo kale sii mareen inta ay socdeen deegaano kale oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka maalmihii la soo dhaafay waxay al-shabaab kala wareegeen deegaano muhiim u ahaa welibana ay ahaayeen deegaano saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen kuwa ay ku qaadi jireen canshuurta iyo sidoo kale kuwa ay joogeen saraakiisha ugu waaweyn al-shabaab. howlgalkan waxaa qayb ka ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay ka tagay magaalada Muqdisho si ay qayb uga noqdaan howlgallada lagu xoreynayo deegaanada gobolada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud. xildhibaanadani waxay sidoo kale sheegeen in ay ilaa laga xoreeyo deegaanada Galgaduud ee al-shabaab gacantooda ku jira aysan dib ugu soo laaban doonin magaalada Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay qobanaha TV xilligan waa naginta.